كرق العك يا وحوار كي العكتين يسوي وسور هذه هالكي كذا تكتب guuleed waa wiil reer jigjiga ah wuxuu helay lacag lagu qiyaaso $6,000 waa wiil yar oo bajaajla ah shaqadiisuna waxa ay tahay bajaajta waxaanu ka shaqaystaa kilka shanaad marka aad la kulanto dad fara badan oo xunxun waxaad odhanaysaa adduunka waxa ka dhamaaday dadkii waan wanaagsanaa laakiin hal shaqsi oo wanaagsan markaad la kulantid waxaad odhanaysaa weli way joogaan dadkii waan wanaagsanaa adduunka oo way ku nool yihiin waa qiso run ahaantii aad ii soo jiidatay oo aan jeclaystay in aan idinla wadaago waa anigoo ah Nadra Saciid fadlan daawada muuqaalkan like saar fiidiyogana share garee si aad asxaabtaada ula wadaagtid qisadan murugada badan leh iyo wiilkan yare daacadda ah wanaagsanna waa dhacdadii la yaabka lahayd taasoo ka dhacday saaka jigjiga subax kasta oo aynu soo kacna waxaan u soo kacnaa sidii nolol maalmeedkeena u soo saaran lahayn amase aan waxbarasho u tegi lahayn guuleed Ibraahim saaka wuxuu u soo kacay sidii uu u shaqaysan lahaa bajaajtiisana ugu shaqaysan lahaa laakiin dhacdo la yaab leh ayaa qabsatay marka uu qaaday rakaab fara badan oo bajaajtiisa uu ku geeyay goobihii amba meelihii ay doonayeen ayaa waxa dhacday hooyo Soomaaliyeed oo dhowr qof oo kale la socdaan ayaa bajaajkii soo kortay kadib waxa uu geeyay goobtii amase meeshii ay u baahnaayeen hooyadii marka ay ka degtay bajaajtii goobtiina ay tagtay waxay ogaatay lacagtii dhanayda wadatayba inaanay sidanin taasina argagax iyo naxdin ayay ku noqotay sababtoo ah ma taqaano bajaajtii ay soo raacday aqoona uma lahaa lacagtuna maadaama ay tahay lacag fara badan oo run ahaantii kolley wax ay ku qabsan lahayd hooyada Soomaaliyeed kadib naxdintii ayaa waxa isku soo ururay dhammaanba dadkii goobta ka agdhawaa amase suuqaas meesha ay joogeen ka agdhawaa taasoo u sheegaysa in ay weyday lacag dhan oo intaa la eg lacagtaasoo lagu qiyaasay 300,000 oo bir lacagtaasoo ay ku wadatay bac madow waxaana u sheegtay in ay kaga timi amase ay kusoo ilowday bajaajtii ugu dambeysay soo raacday run ahaantii cid wax u qaban kartaa ma jirto sababtoo ah bajaajkay soo raacday iyaduna aqoon uma lahaa warwar iyo murugo badan kadib maxaa dhacay wiilkii bajaajlaha ahaa guuleed Ibraahim markii uu isaguna iska howlgalay amase shaqadiisii uu watay oo dad kale iyo rakaab kale uu siiri qaad maxaa dhacay waxa uu arkay bac meesha lagu ilaaway oo bajaajta xaggeeda dambe ku jirta waxaanu xasuustay qofkii ugu dambeeyay ee uu soo dhigay taasoo ahayd hooyo Soomaaliyeed bacdan waxa ku jira ma buusan furin laakiin markuu arkay inay lacag tahay mu ogaanin manaanu tirin waxaanu isku dayay in sida ugu dhaqsaha badan leh isaguna maamadii uu daydayo maadaama maamadii iyaduna dhankeeda ay kasoo daydaysay isaga oo ay islahayd talow lacagtaadii ma heli doontaa guuleed Ibraahim wuxuu dareemay in mas-uuliyad weyn kortay maadaama qof uu alaab ku ilaaway bajaajtiisa xaaraana ay noqon karto haddii uu qaato waxaynu ogsoonahay dhalinyarta hadda joogta inayn ka wada aaminsannahay dhammaanteenba fikir ah lama aamini karo laakiin waxa jooga dhalinyaro sida guuleed Ibraahim oo kale ah guuleed Ibraahim wuxuu ugu yimid hooyadii goobtii uu dhigay markii hore nasiib wanaag wuxuu arkay hooyadii oo murugaysan bartaasna dad fara badan ku urursan yihiin wuu u yimid wuxuu ku yidhi hooy ada alaabtan meesha kaga tegay ilaaweyna run ahaantii waa wax aan loo qaadan karin sababtoo ah waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo bajaajla qof kastaana maanta lacag uu u baahan yahay markaas taa waxa kala weynaatay guuleed Ibraahim haddii uu lacagtan qaato in ay xaaraan noqonayso kadib hooyadii ayuu lacagtii ku wareejiyey waxa ay la yaab ku noqotay dadkii hooyada ka agdhawaa lana murugoonayay oo run ahaantii u qaadan waayay arrinkan kuwaasoo dhammaantoodba u mahadcelinayay una ducaynayay wiilkan yar wanaagga uu sameeyey la yaab ayay ku noqotay hooyadii kadib ducadu ma ahan tan afka laakiin waa ta qalbiga si niyad ahaan oo qalbi ahaana way ugu ducaysay inankan yar lacagtaas haddii qof kale gacantiisa ay u geli lahayd amase ay ku dhici lahayd run ahaantii lama arkeen meelay martay guuleed wiilka yara daacadda ah hadalladiisii waxaa ka mid ahaa oo uu yidhi maalin kasta waxaan celiyaa alaabta lagu ilaawo bajaajtayda arrintan maanta dhacdayna waxay la mid tahay alaabihii aan celin jiray markay dadku igu ilaabaan waa hadalkii guuleed Ibraahim oo yidhi qisadani waxay soo jiidatay dad fara badan oo aan anigu ka mid ahay idinkuna aad ka mid tihiin daawada isku day inaad markasta adna saasoo kale noqoto daacadima hungowdo fikirkaaga ka dhiibo qisadan inankani ma wax wanaagsan ayuu sameeyey iyo welibana sidii loo baahnaa ayay kula tahay fadlan muuqaalkana la wadaag asxaabtaada adiga u sheer garaynaya like-na saar waad ku mahadsantay waqtigaaga qaaliga ah ee aad ku daawanaysay fiidiyogan ما لا يدل عتلها ويلكم maxaa ku ducaynaysaa
إلهي جنة فردوس سيا وحبر كلنا إلهي كسيا كفيسة آخرنا جنة فردوس إلهي ما شاء الله ما شاء الله أنا وأنتم عيننا ويل اللي يراوي وحن أبن قيسي كلنا دعاء ما أنت تذكر مسلمين تالك شغلنا تك شقيس التبع يا خير وحلو كهذا قالسن معاه ولادي فاهم فليجا شاكا ساق قصة سيد على العقد هالك ما مضى قاصر على العقد ساتكو قاتيسه أكن حافظان واحد قصر على حافظان صار عندي هذه اللي لو بس سعودي بركانو على واحد وتين نارين اخترت بان خيري اخترت عدن اخترت سالانو كان اخترت بقار يجي تجين صح أنا واسكت صح برضو واسكت تجين واحد تجين سوقان قال اسكت قصص العيو نصيب عندما قاعدين العقد مسهل أنا حاجة بالمية من العقد إذا ما يجي بان واحد خايب لكن واسطة بقولكم بيتي محمد العقد له محمد